halkani waa wadanka TV qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxa kamida ciidamada dawladda Soomaaliya oo si buuxda ula wareegay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud isla markaana hadda si toos ah ugu damaashaadaya saldhigyada kala duwan ee magaaladaasi laamiyada iyo sidoo kale baraha control ee laga soo galo magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland waxa uu guul darro iyo dhabar jab weyn kala soo laabtay safarkiisii aan macnaha badan ku dhisnayn ee uu ku tagay wadanka Imaaraadka Carabta halkaas oo uu dharbaaxo xoogan ku soo dhuftay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle markan waxa uu si toos ah ugu sheegay hoggaanka midowga musharaxiinta mucaaradka inuusan kala shaqayn karin boob lagu sameeyo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya isla markaana uu doonayo in si toos ah doorashada golaha shacabka ay uga dhacdo magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne Ethiopia dagaallo aan caadi ahayn ayaa ka dhacay saacadihii la soo dhaafay waxaana la qaaday tallaabo ku aadan doorashada iyo sidoo kale cidda hogaaminaysa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayagee aan ku bilaabo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka Galmudug oo iskaashanaya ayaa waxay si toos ah ula wareegeen magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud halkaas oo maalmo ka hor dhaqdhaqaaqyo aan sidaasi u buurnayn ay ka wadeen ciidamada ururka Ahlusunna isla markaana ay ciidamada dawladdu dhabarjab xoogan ku sameeyeen ururka Ahlusunna ayaa waxay dhaqdhaqaaqyo ka bilaabeen deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Huurshe dadka deegaanka odayaasha dhaqanka waxgaradka culimada aqoon-yahanka iyo guud ahaanba bulshada deegaankaasi waxay si toos ah codsi aan lala gaban u hordhigeen hoggaanka ururka Ahlusunna iyagoo ka dalbaday in ay gulufka iyo ciidanka ka dulqaadaan magaalada waxayna u sheegeen in marnaba aysan u dulqaadan karin gulufkan xilligan ay ka wadaan gudaha deegaanka Huurshe ee gobolka Galgaduud waxa sidoo kale dhinacyadan ay ku wargeliyeen in marnaba aysan aqbali karin dhibaato soo wajahda dadka iyagoo sidoo kale u sheegay in dadka deegaanku ay saxamili karin dagaal dhexmara ciidamada dawladda iyo ururka Ahlusunna oo waxay u arkayeen in ururkani aysan ahayn urur tabar leh oo deegaankaasi gacan ku hayntiisa maamuli kara ama ka hor istaagi kara in ciidamada dawladda iyo kuwa dawlad goboleedka Galmudug si toos ah gudaha ugu galaan taasi oo ay u arkayeen in dhibaato ay ku noqonayso dadka deegaanka maadaama Soomaalidu ku maahmaahdo nin aan ku furi doonin yuusa ku rarin taasoo ka dhigan in dawlad goboleedka Galmudug deegaankaasi uu arkayo mid laga soo abaabulo dhibaatooyinka maamulka ka dhanka ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedkaasina ay ku qabanayaan gacan bir ah qaybaha kala duwan ee bulshada ee codsiga hor dhigtay waxa ka dhaga adeegay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan hogaamiyaha ururka Ahlusunnada xilligan howlgallada iyo dhaqdhaqaaqyada wada waxana dadka deegaanku ay si cad ugu sheegeen in iyagu ay dagaalka bilaabi doonaan haddii aan colka laga dulqaadin deegaankaasi waxana Sheekh Shaakir iyo colka uu hogaaminaya u ruqaansadeen dhanka deegaanka Bohol ee gobolka Galgaduud halkaas waxa ku weeraray ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya walow dagaalkii halkaasi ka dhacay uu dhaliyay qasaare kala duwan isla markaana ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka Galmudug ay dib uga laabteen deegaankaasi Bohol maadaama dagaalku uu saameyn dhinacyo kala duwan ku yeelan lahaa dadka deegaanka taasi waxay sababtay in ciidamada ururka Ahlusunna ay u ruqaansadaan dhanka magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud halkaas oo ugu dambeyn ay la wareegeen isla markaana dhaqdhaqaaqyo ay ka wadeen deegaano hoostaga waxayna ku faafeen deegaano hoostaga magaaladaasi Guriceel ee gobolka Galgaduud iyo sidoo kale degmada Matabaan culayso dhanka ciidanka oo la saaray ururkaasi kadib waxay isaga baxeen magaalada Matabaan oo markan si toos ah dawlad goboleedka Hirshabelle gacantooda u gashay waxa sidoo kale isaga baxeen deegaanadii hoostagay magaalada Guriceel ciidamada dawladda ayaana hareereeyay guud ahaanba magaaladaasi iyagoo gudaha u galay xaafado ka tirsan magaalada Sheekh Shaakir iyo ciidamada hogaaminaya ayaa hadda waxay isugu urureen hal xaafad oo magaalada ah inta badanna qaybaha kala duwan ee magaalada iyo xaafadaheeda koontaroolada laga soo galo iyo sidoo kale goobaha saldhigyada boolisku ay ka mid yihiin waxa gacanta ku haya ciidamada dawladda Soomaaliya Sheekh Shaakir
iyo kooxda uu hogaaminayo hadda ma hayaan meel rasmi ah oo baxaan, waxaana saacadihii u dambeeyay si toosa marba mar ka dambaysa uga goosanayay ciidamada iyaga daacadda u ah iyagoo inta badan isku dhiibaya dhanka dowladda Soomaaliya. waxaa sidoo kale jira ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ee horay uga goostay isla markaana ku biiray ururkan Ahlus Sunna oo markii horeba 2019 ururkaasi daacadda u ahaa. ciidamadaasi ayaa hadda waxay isaga bixeen kuwa Ahlus Sunna waxayna tageen deegaano aan sidaas uga fogeyn magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud, halkaas oo ay dhaqdhaqaaqyo kala duwan ka wadaan. waxayna doonayaan in odayaasha dhaqanku u ergeeyaan mar kalena ay ku biiraan ciidamada dowladda Soomaaliya. Sheekh Shaakir iyo sidoo kale hogaanka kale ururka Ahlus Sunna iyagu hadda waxay baadigoobayaan halka ay ka bixi lahaayeen iyo qaabka mar kale deegaanada Galmudug ay uga siiban lahaayeen. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor isagu waxa uu doonayaa markan in gacanta lagu soo dhigo hogaanka ururka Ahlus Sunna, gaar ahaan Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo sidoo kale Sheekh Cabdirasaaq Ashcari, isla markaana la geeyo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug, halkaas oo wax looga weydiinayo tallaabooyinka ay qaadeen iyo sidoo kale tallaabada dhanka maamulka Galmudug ay qaadayaan mas'uuliyiintiisa. Macallin Maxamuud ayaa isagu waxa uu ka maqan yahay deegaanada Galmudug iyo guud ahaan Soomaaliya, waxaana isaga baxay gudaha dalka kadib markii uu arkay in ay wiiqantay awoodoodu. macallinku markii hore waxa uu ku sugnaa deegaanada Puntland, halkaas oo jihaadka kaga dhawaaqay, balse markii ay la wareegeen Ahlus Sunna Guriceel, Matabaan iyo deegaano kale, markii dambana awoodooda la isugu geeyay Guriceel, ayuu isaga baxay deegaanada Puntland. diyaaradii uu ka raacay Garowe waxa uu kaga degay Nairobi isagoo sii galay dhanka wadamada Carabta. waxaana madaxweynaha Galmudug markan uu doonayaa in aan la siin fursad dambe oo ay ku soo noolaadaan ururkan Ahlus Sunna oo iyagu ka bartay isla markaana aad u yaqaana dagaalka gudaha deegaanadaasi, wax badanna Al-Shabaab iyo dowladaba kula dagaalamayay qaybo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Qoorqoor ayaa sanad ka hor doorashadiisii waxa uu gacanta ku dhigay hogaanka sare ee Ahlus Sunna, balse markaasi waxa uu arkayay in dadka deegaanka arrintaasi ay culaad ka dhex abuuri karto, isagoo si toos ah u fasaxay isla markaana u sii daayay si ay u noqdaan dad xor ah. mar kale ayayse soo abaabuleen dhibaatooyin ka dhan ah dowlad goboleedka Galmudug. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland waxa uu wajigabax iyo dhabarjab weyn kala soo laabtay safarkiisii magaalada Addis Ababa iyo sidoo kale wadanka Imaaraadka Carabta. Dani ayaa maalmihii u dambeeyay waxa uu ku qaadanayay Imaaraadka Carabta, waxaana dhabarjab xoogan uu kala soo kulmay safarkiisii xilli albaabada uu ka xirtay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa isagu waxa uu daneynayay in dhinacyo kala duwan oo wada hadal ah uu la yeesho saraakiil sarsare oo dhanka sirdoonka u qaabilsan Imaaraadka Carabta. sidoo kalena waxa uu quudireynayay in lacago kala duwan uu ka helo Imaaraadka si uu ugu talagalo lacagahaasi inuu kaga qayb galo doorashada Soomaaliya. lacagahaasi waxay ahaayeen qaybtood kuwa horay ay Imaaraadku ugu ballan qaadeen. waxa uu sidoo kale doonayay ballamo cusub xilligan inuu la soo yeesho saraakiishan Imaaraatiga, balse guud ahaanba safarkiisii waxa waxba kama jiraan ka dhigay kadib markii uu hor istaagay isla markaana baabi'iyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. Cumar Cabdirashiid waqtigiisa ugu badan waxa uu ku qaataa wadanka Imaaraadka Carabta, waxaana loo arkaa taasi inay tahay sababta ugu weyn oo dilaalka uga yahay arrimaha siyaasadda Soomaaliya Imaaraadka. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake waxa loo arkaa inuu yahay ninka sida tooska ah iskugu xira siyaasiyiinta Soomaalida ah iyo sidoo kale kuwa Imaaraatiga ah, gaar ahaan boqortooyada Imaaraadka. waxaana taasi ay keentay in uu si toos ah saameyn ugu yeesho xiriirka labada wadan. guud ahaanba siyaasiyiinta mucaaradka ah ee u taagan inay u tartamaan villa Soomaaliya kuwa Imaaraadku ay rabaan waxaa si toos ah loogu soo maraa Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. Cumar waxa uu doonayay inuu xajisto booskiisa kursiga aqalka sare ee uu ku fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay. Siciid Danise dhag jalaquma siin guud ahaanba warqadihii uu diray madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland. arrimahaasi waxay keeneen siyaasad ahaan inay kala fogaadaan Puntland mas'uuliyiinta hogaamisa, gaar ahaan Siciid Cabdullaahi Dani iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. waxaana intaasi wixii ka dambeeyay si toos ah u bilowday xiriir xumi ka dhaxaysay labada dhinac. taasi waxay keentay in Cumar Cabdirashiid uu si toos ah u diido in uu xiriiriyo Siciid Dani iyo Imaaraadka,
taasi oo keentay weji gabax weyn oo Siciidani uu kala soo kulmay safarkiisii dhanka Imaaraadka Carabta. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Xuseen Guulaawana waxa uu hoggaanka midowga musharaxiinta u sheegay in marnaba uusan ka qayb qaadan karin in uu dhaco doorashada xubnaha mucaaradka. waxa uu sheegay in doorashadu ay si toos ah uga dhacayso magaalooyinka Jowhar iyo sidoo kale Beledweyne. waxa uuna Guulaawe u xaqiijiyay xubnaha mucaaradka in doorashadaasi ay noqonayso mid u dhacda sida dowladda Soomaaliya ay doonayso oo doorasho xor iyo xalaal ah, isagoo tilmaamay in siyaasi walba awoodiisa hogaamineed uu ku soo bandhigayo gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle isla markaana beeshiisu ay dooranayso. waxa uu sheegay Cali Guulaawe in beesha kuraasta ay leedahay uusan ku yeelan karin wax saameyn maadaama inta badan beeshu ay soo dooranayso kuraastooda isla markaana iyaga ay ka imaanayso doorashada kuraasta kala duwan ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Cali Guulaawe ayaa Sheekh Shariif oo uu la kulmay waxa uu si toos ah ugu sheegay in marnaba uusan saameyn ku yeelan karin arrimaha doorashooyinka dalka, isagoo sidoo kale carbaabay inuu la socodsiyo saaxiibadiisa midowga musharaxiinta inay soo tartamaan iyaga iyo sidoo kale xubnaha ka socda isla markaana beelahooda kuraasta ay ka soo qaataan dowlad goboleedka Hirshabelle ay garab istaagi doonto cid walba oo danta Soomaalinimada ka shaqeynaysa. waxayna taasi godmado ku riday rajada mucaaradka ahayd in garab istaag ay ka heli karaan Cali Xuseen Guulaawe. Itoobiya dagaalada ka soconaya ayaa waxay u muuqdaan kuwa sii xoogaysanaya. diyaaradaha dagaalka Itoobiya ayaana si toos ah saacadihii la soo dhaafay waxay u duqeynayeen magaalada Maqale ee magaalada madaxda gobolka Tigreega, waxaana sidoo kale socda gulufkii ugu dambeeyay ciidamada Itoobiya ay wadaan. dowlad deegaanka Soomaalidana Mustafa Cagjar ayaa mar kale waxa loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida isagoo hogaamin doona kadib doorasho khilaaf badan oo ka dhashay oo ka dhacday gudaha dowlad deegaanka. warka wadanka TV-na waa intaasi nabadgelyo.